asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kulanti wacan oo wanaagsan saaxiibayaal idil ahaantiin meel walbo aad dunida ka joogtaan kusoo dhawaada barnaamij aan diiradda ku saarayna arrimaha bulshada ee magaalada Espoo ee wadankan Finland ee aynu degannahay. barnaamijka inta uu socdo waxaad ku daawan doontaan caqabado badan oo looga hadli doona iyo xalkooda arrimaha bulshada quseeya. waxaa barnaamijka igala qayb galaya haddii aan dhankaas kasoo bilaabo waa walaalkeen Guuleed Simba oo aad wada taqaanaan ahna fanaan Soomaaliyeed. waxaa ku xiga walaalkay injineer Maxamed Cali Jaamac oo ah aqoon-yahan Soomaaliyeed islamarkaana ahaa gudoomiyihii jaaliyadda Soomaalida wadankan Finland, haddana ah musharax u taagan golaha deegaanka magaalada Espoo islamarkaana ah shakhsi dadka Soomaaliyeed ee wadankan Finland degan wax badan u soo qabtay. waxaa sidoo kale barnaamijka igala qayb galaya oo ila jooga walaalkay Baashi Cali oo isagana wax badan ka og arrimaha qoyska, caqabadaha iyo dhibaatooyinka jirana barnaamijka inta uu socdana la falanqeyn doono. aalada fogaan aragga waxaa barnaamijka nagala qayb gali doona haddii Ilaahay subxaanahu wa tacaala laga helo walaashay Maryan Askar oo ayadana ah gabar aad u firfircoon islamarkaana wax badan ka og arrimaha dhalinyarada. qaybta dhalinyarada ayay barnaamijka ugala qayb qaadan doontaa iyo sidoo kale Jaamac Faysal Cali. intooda ayaa barnaamijka igala qayb qaadan doona inta uu socdo. marka hore waxaan kusoo dhaweynayaa Maryan Askar oo arrimaha dhalinyarada wax badan ka og aalada fogaan araggana barnaamijka uga qayb qaadanaysa. Maryan, soo dhawo. waxaan rabnaa inaad wax naga ogeysiisid caqabadaha jira dhanka dhalinyarada ee wadankan Finland. soo dhawo Maryan. waa mahadsantahay dhammaantiin waa wada salaamayaa. waxaan rabay inaan horta ka bilaabo dhalinyarada dhibaatooyinkeeda horta ugu badan. hadda anaga reer Finland nahay waxaan ka nahay gadaal gagaar oo calashaan waxaa ula jeedaa maxay tahay wadamada kale sida UK iyo Sweden oo Soomaalida kale nooga badan tahay. caqabadaha ka jiri jiray hadda gadaal ayaa naga tartiib noo soo gaarayaan. marka sida looga hortagi lahaa iyo qaabkii loo maareyn lahaa ayaan doonayaa inaan laba erey ka dhaho. waxaan u maleynayaa dhinaca tacliinta si fiican u falanqeynay, laakiin dhinaca vapa ayaa soo haray. oo sida vapa iyo bulshada arrimaheeda tan khusayso waxay tahay dhalinyarada sida loo siin lahaa waxyaabo ay ku mashquulaan oo caafimaadkoodana u fiican oo waqtiga freega usoo haro markay kasoo harto waxbarashada iyo howlahooda kale muhiimka ah maxaa lagu sameynaa. marka vapa waxaan u arkaa in anaga bulshadana idin naga saaran tahay mas-uuliyad inaan u sameyno dhalinyarada waxay ku mashquulaan oo welibana garab siina waalidiinta siday u helaan vapa ilmahooda waxay ku sameyn lahaayeen sida harrasatoiminta hobby sida loo raadin lahaa iyo kasato amba lomadka waalidiinta laga caawiyo. tan kale waxay tahay waxaan kale oo rabi lahaa in aad iyo aad xooga loo saaro sida waalidiinta loo fahansiin lahaa qaabka social media loo isticmaalo oo ubadkooda uga warqabaan markaysan guriga joogin camal meeshay joogaan, meeshay marayaan, waxay haayaan iyo waxay qabanayaan. marka vapa ayaa u maleynaa inay tahay tan ugu halista badan oo ay dhalinyarada dhibaatooyinka ugu badan ay kula kulmayaan marka iskoolka laga soo tago iyo shaqooyinka muhiimka kale ay haystaan. tan kale waxaa u baaqayaa waalidiinta waxay tahay inay la sameeyaan Viranomaisetka wada shaqeyn daahfuran. Viranomaisetka waxaa ula jeedaa dowladda qaybaheeda kala duwan sida dadka la shaqeeya ilmaha xaquuqdooda dadka ilaaliya iyo dadkan booliska ah iyo socialka in waalidiinta hadda ay imaato dhib oo ubadkooda ku wajahan inay sameeyaan wada shaqeyn daahfuran oo mustaqbalka ubadkana ay ku dadaalaan dhinacaas. tan kale oo aad anaga aan uga gaabino waxaan u arkayaa waxay tahay dhalinyarada dhibaatooyinkooda waxaa kamid ah mielenterveysongelmad amba sida u naqaana xanuunka oo maskaxiyan ilmaha qaban karo sida shaqo la-aanta keeni karto, waxaa keeni karto waxbarasho la-aanta iyo vapa oo aysan helayn wax ay ku maareeyaan. marka taasna in laga gaabinin oo iyadana xooga la saaro sidii ubadka hadduu dhibkaas qabsado sidii loo caawin lahaa loogana badbaadin lahaa
dhibaatooyinkaas marka intaasoo kusoo koobaya. waayahay aada umahadsan tahay marian askar waan kaaga mahad celinaa sida fikirkaaga saliimka aad u cabirtay islamarkaana aad noogu sheegtay caqabadaha haysta dhalinyarada soomaaliyeed ee wadankan finland ku nool. barnaamijkeena weli daawanaysaan arrimaha bulshada aan uga hadlaynay waxaan rabaa inaan kusoo dhaweeyo jaamac faysal cali oo isagana aalada fogaan aragga barnaamijka uga qayb galaya. jaamac bal haddii aad imaqashid soo dhawow islamarkaana sharaxaad kooban inaga sii dhanka ururada caqabadaha jira inaa nala wadaagtaan aada u jeclaan lahayn. jaamac soo dhawow. aada iyo aad baa mahadsantihiin dhammaan ciddii kulankan qaaliga qabanqaabiyey dhalinyarta reer Espoo. runtii su-aasha haddaan ka jawaabo horta caqabaha ururada waxaa ka mid ah in ururadan waxaa muhiim inay kobcaan, waayo ujeedada ururka badanaa haddii laga eego dhanka Soomaalida ama qurba joogta haddaan nahay waxaa loo baahan yahay in ururada inay koraan, ay kobcaan, isku bedelaan community centers, meelo bulshada ku kulanto sida walaashay Mariam Askar ka dhawaajisay, meelo dadka lagu caawiyo, dadka wadanka ku cusub, dadka caruurteena soo koraya, dadka wadanka ku raagay, meel aqoonta iyo cilmiga iyo informationka lagu kala wadaarsado, meel runtii ma garanaysaa u ah hooy aan kusoo hooyano, aan isku barano, aan isku kaashano, aan ku tashano, aan arrimaheena inoo gaarka haddaan Soomaali nahay aan kaga tashano, xiriirkeena dhexda wanaajino. ujeedada ururada in saa loo dhiso haddii laga dhigo hadafka ururada runtii markaa waxay noqon doontaa insha Allah guul soo hooyatay. xaafad walba ay dadka isku tagaan oo samaystaan meelaha saa ku kulmaan, ayahoodii arrimooda ka tashadaan. marka runtii saasaa runtii wanaagsan. marka caqabaha runtii ka hortaaga waxaa ka mid ah in dadka weli ay garanayaan habka ururada loo dhiso, shuruucda iyo habka dhaqaalaha loo kobciyo iyo habka laisku xidho bulshada. marka arrimahaas ayaa ah in ururada imika jira ay ka caawiyaan kuwa kale soo koraya oo si vertashtoki ahaan u siiyaan ayaa muhiim ah. markaas runtii ujeedadana gaari karnaa ay anigu ila tahay shakhsiyan. aada umahadsan tahay jaamac sidaa usoo koobtay islamarkaana fikirkaaga u cabirtay. haddii aan idin xasuusiyo waxa aad daawanaysaan barnaamij aan uga hadlayna arrimaha bulshada islamarkaana diiradda aan ku saareyna caqabadaha jira ee haysta dhalinyarada, ururada, qoyska, fanka laftirkiisa oo guuleed weynala jooga. markii aan caqabadaha ogaanana islamarkaana aan raadino bal haddii arrinkaasi la geyn karo golaha deegaanka, maadaama in la rabo golaha deegaanka la geeyana waxaan casuunay walaalkeen injineer maxamed cali jaamac oo isagana u sharaxan golaha deegaanka magaalada Espoo. barnaamijka naga qayb galaya isaga qeybaha dambe aan kusoo dhaweynayna maadaama golaha deegaanka uu u sharaxan yahay sida loo geyn lahaa golaha deegaanka. waxaan microfonka markaan ku wareejinaya walaalkay baashe cali. baashe bal soo dhawow islamarkaana sharaxaad kooban inaga sii caqabadaha haysta qoysaska Soomaaliyeed ee wadankan Finland ku nool, bal inta ka ogtahay. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. runtu waa mataqaan ku mahadsantihiin barnaamijkan. runtii arrinta haddaan galo qoyska ku saabsan runtii waa su-aal aad u adag, lakin waxaan isku dayaa bal inta anagu aragnay iyo intaan mataqaana aan ka hayno warbixin ka hayno. runtii qoysasku waa kala duwan yihiin, qoys kasta baahi wuxuu leeyahay khaasuu leeyahay, laakiin baahiyooyinka aan isleeyahay waan ka simannahay. runtii waxa weeye waa arrimaha maanta laga wada hadlayay oo ku saabsan dhaqankiina iyo diinteena sidaan u ilaashan lahayn baa ta koowaad ah. taasna runtii waxay u baahan tahay wada shaqeyn ballaaran oo annaga oo dhan naga dhexeysa. ta labaad waxaan isleeyahay waa arrimaha guryaha ku saabsan oo runtii arrinta hadda koronaha dhacay wax badan baa soo baxay oo ah guryaha la degan yahay iyo xaaladeeda taalifta waa arrin meesha ku jira. arrinta ugu dambeysan waxaan isleeyahay wada shaqeynta ka dhexeeya iskuulka iyo xanaanada intaana la kobciyo. intaasaan kaga baxay. waayahay baashe waa mahadsan tahay. kulle waa soo koobtay qeybaha dambe barnaamij ku falanqeyn doona haddii ilaa yiraahdo. waxaan inala jooga sidaa hore idinkugu sheegnay injineer maxamed oo kolley markii caqabadaha aan wada ogaano isagana aan weydiin doono maadaama golaha deegaanka uu u sharaxan yahay sida loo xalin lahaa arrintaasi. balse hadda
su-aasha ugu dambeysa ee barnaamijkeena aan rabaa in aan weydiiyo walaalkeen Guuled Simba oo ah fanaan Soomaaliyeed waliba isaga laba su-aal baan weydiinayaa waana isku raacinayaa Guuled soo dhawo marka hore suugaanta saameyn ama door intee la eg ayay qofka shakhsiyadiisa ka qaadan kartaa qaybta dambana kulli labada su-aal waa isugu kaadarayaa waxaan rabaa Guuled in aad dardaaran intee la eg baa u jeedinaysaa dhalinyarada Soomaaliyeed waliba gaar ahaan kuwa reer Esbo oo maadaama aad Esbo degan tahay. Assalaamu calaykum waad gaada hal su'aal baan sugayay horta aad baan ugu faraxsanahay maanta inaan ka soo qayb galay campaignka Engineer Maxamed waxaan kaloo salaamayaa Sharmaarka adiga iyo sidoo kale Baasha iyo banarkii kale iga horreeyay intaana su-aashaada ka jawaabin sugaanta waa sooyaalka ummad ay leedahay oo waxa kaliya ay maanta muujin karaan aan u aaminsanay jiritaanka inaan Soomaali maanta nahay ummad xataa inaan dhahmay Soomaali waddanka Finland aan joogo taariikhdooda wuu qoran yahay laakiin inagu sugaan ahaan buu ku qoran yahay oo xilligii sayidka xilligii Axmed Gurey dadku wax miyay qori jireen way gabi jireen waddankeena taariikhdu lahaa waxyaalaha uu soo maray dhibaatadu soo maray sifaha dadkeena ay leeyihiin sugaanta ku jirta markaan waxaan aaminsanahay waa dhaxasha kaliya ta maanta aan haysano waxyaalaha dadku u tar marka hadaan u soo noqdo waxyaalo badan sidoo kale maadaama aan fanaanahay waxaan ku gudbinaa fariimo haddii noqoto dareen haddii noqoto maaragtay wacyigelin oo dee Soomaaliya hore ugu maamahday dhagaxna meel dhufu dhacaa dhawaano meel dheer dhawaqa meesha dheer dhacaa waa fanka oo maanta qof maanta wariya ama qof maaragtay sheegeen abwaana ama qof fanaana ama qof shakhsiya hadduu maanta rabo qof wax ka dhaadhiciyo sugaan buu adeegsadaa haddii noqoto mahmah haddii noqoto sheegeen gabay haddii noqoto heesan noqoto marka waxyaalo badan buu bulshadeena u taraa sidoo kale wacyigelinta dhalinyarta oo maaweeladeena xataa ka mid ah oo sugaanaysan oo ubadkeen lagu koriyaa waxyaalo fara badan oo dadkeena u taraa waan horta aaminsanahay dardaaranka kulley dardaaranka waxa weeye muxuu ahaa anagu waddankii markaan joogno yareen waxaan ka hadlaya dhalinyarta maanta qurbahan joogta ee kuwa da'deyda ah ama kuwa iga yar ama kuwa hadda dhalanayaba horta waxaan aaminsanay horta ayaan daran yihiin sababtoo ah waddankii markaan deganaa aan waddankii Soomaaliya aan joogay dugsiga hoose dhexe ilaa sanad kusoo dhiganayay waxaa aasaas ahayd inaan luqadda Soomaaliga marno oo gabayada loo dhigo gabayada waxaa ku jira taariikhdeena oo Soomaali soo martay dagaaladii aan soo marnay Soomaalida ii sheegay maartay taariikhda ay leeyihiin marka waxaan aaminsan dhalinyarta maanta qurbaha joogta inaan nasiibkaani haysan horta aad horta yani wax muuqdo cad weeye mood marka waxaan waalidiinta kula dardaarmi lahaa aan u sheegi lahaa waa ayaga weeye qofka maanta ubadka badbaadin kara dadkeenu waxay dhahaan luqadii gabaabsi ku jiray luqadii isha muusiga lumaysaa inaan saa dhahna ma luqadeen wabi luntayba sababta maanta wiilka waddankan jooga caawa haddii aad u Sharmaarka Maxamed oo kale du kelmad weydiin laga yaabo inuu garan waayo u dhamaartay ii sheegay maxaa laga wadaa u dhaho marka waa ayaan dare inagana haystaan aaminsanahay marka waalidiinta waxaan ku dardaarmi lahaa in ubadka waddanka degan inay ku wacyigeliyaan ay baraan luqadooda sidoo kale waxaan ka dhawaajiyay Engineer Maxamed maanta wuxuu ii sheegay barnaamij inuu soo wado oo ah ubadka lagu barayo maaragtay af Soomaaliga oo barnaamij weyn oo runtii ila socodsiiyay oo aad ugu farxay runtii uu rabay inuu sheeg dardar geliyo oo dhawaan u soo bandhigo saylatarkiisa oo nin sugaanyahana dee dadka intooda badan ma yaqaana sugaanyahanku baa yaqaana marka Maxamed waa la socdaa nin sugaan daadhiya waxaan aaminsanay kaalintan ku soo bixi karo aniga runtii aad baan ugu faraxsanahay waxaan rajeynayaa kaalin weyn aan ka qaato marka malaba u soo noqonaya weelinta waxaan ku dardaarmayaa in ubadka in sugaanta iyo dhaqankooda iyo maartay sheegeen shakhsiyadooda la baro aad baan salaamaya aad u mahadsan tahay walaalkeen Guuled Simba oo kamid ah fanaaniinta Soomaaliyeed kuwooda ugu caansan isla markaana maanta aan nasiib u yeelanay inuu nagala qayb galo barnaamijkan arrimaha bulshada aan uga hadlayno degmada Esbo ama magaalada Esbo ama xaafadda Esbo oo uu Guuled degan yahay sidaas baa barnaamijku ugu casuunay waxaan rabaa marka in aan caqabadihii waa ogaanay inaan u gudubno sidee arrimahaasi loo geyn karaa golaha deegaanka magaalada Esbo maadaama Maxamed Engineer Maxamed Cali Jaamac oo ah musharax golaha deegaanka u taagan oo barnaamijka nagala qayb galayo isagaan ku hormaraya Maxamed waa la socotay Maryan iyo Jaamac iyo Baashi iyo Guuled hadaladooda oo dhan caqabadahaas aad maqashay
sidee bay kula tahay in loo geyn karo golaha deegaanka oo hadda adiga musharax u tahay engineer soo dhow sharmarke walaal maxaa aad iyo aad baan runtii kugu mahadnaqaya hadda kasokow maxaydeen waxaan runtii rabaa inaan ummadda ina daawanaysa iyo walaalaha xakan jooga aan tuso dhalinyarta soomaaliyeed maanta ka qayb galay banelkan kuwii inaga horeeyay dhakhaatiirta ku jireen iyo maxaydeen ay ku jireen dhalinyarta kale ee maxayd gabdhaha ay ku jireen kuwan maanta jooga dheelitirka iyo bisaylka ka muuqda dhalinyarta Soomaaliyeed maanta jaamac ayaa runtii ayaa ku jiray oo runtii ah nin injineer wuxuuna waa dhalinyarta sameeyay urur cusub oo modern ah oo sidoo sheegay raba inay kobcaan oo meel weyn ay gaadhaan waxa ka iyadna ku jirtay Maryam oo runtii gabadh ah anu arko energy ku jira hadii rag badan oo Soomaali runtii ku jiri lahaayeen inay ka wada energy badan tahay siday ummadda Soomaaliyeed ugu doodo meel walba ummadda Soomaaliyeed ay ugu taagan tahay runtii baasha runtii isaguna halkan garabkayga fadhiya oo nin dhalinyaro halkan ku soo koray laakiin aad moodid inay maskaxna weyn ku jirto dadka ummadda aad u fahma iyo Soomaalinimada maxay fahma ummaddu meesha ka bugta fahma imakana uu noqon doono dhanka maxay sheegay arimaha maxay bulshada inoo soo socdo runtii in waxba weyn ka bedeli doona waxa xakan jooga abaankeenii runtii weynaa oo imaka intii yareeday nagu yiri runtii dheelitirka ahayd koobnayd runtii meel walba taabanaysay runtii una tusay bal waxaan idin weydiiyay intaasoo hal mar intay soo wada hesho tiraado waxbaanu bedelaynaa ahaydeen esbo baasha mooyaan inteeda kale reer Isbaan baashana waxa loogu soo daray baasi esbo wax badan ku qabtaa oo yimaada waxyaabo badan ku dhibtaa inta la midka ah hadii inta isku yimaadeen ummad baan bedeli karnaa ummadii wax ka weyn buu bedeli karaa marka maanta waxaan haysanaa Jaanis dhalinyartu ay hortaan ka muuqana Finland aynu rabno aynu gaarsiino golaha deegaanka aynan ku hadhine aynu baarlamaanka tagno in waxaan aan dhiiban karnaa dhiibno inagoo Soomaaliya islaama maxay afkaarteen iyo waxaan dhiibana arimaha bulshada marka walaalo ay ka soo wada dhawaajiyeen inaan aniga waxa mas'uuliyadda isaaran waxa weeyaan waxa intaan urursado aan bishaala berito la meesha geeyo aan ilaado dhibaatooyinkaas jira wixii markaan waxba aan ka qaban kari waaye Soomaarag qacanteeda ka batayna dib inuu la soo noqdaan ilaado arrimuhu halkaas marayaan marka aniga waxa ugu weyn meeshan geyn doona waxa weeyaan inaan gidaarka qarqaraaco oo weedheenu ay gudaha gasho oo wixii dadku ay tabanayeen ay meesha ay gaadho intaas horta ta koobaad taas weeyaan isbedelku waa ku xiga talabaadna waxa weeyaan inaan anigu sii socdo oo beritoolin kala dhalinyarada booska aan imaanayo oo iga si fiican aniga u yimaado oo inuu tabagalno sida loo kala socdo loo kala hormaro marka intaasan ku soo runtii aan ka hadlaya anaan maanta inaan wax urursado waxa aan la tago beritoolin dib u xisaabtantaan insha Allah waayahay engineer maxamed cali jaamacada kuugu mahadcelinayna saan horeydi kuugu sheegay waa musharax u tahay golaha deegaanka magaalada Esbo qof wax bartay wadankan wax ku bartay dadna wax baray ilaa iyo heer sare waxbarashada ka gaaray engineerka wuxuu ahaa waliba Soomaalida wadankan Finland gudoomiyahooda waxaan ku rajaynaynaa guul iyo reer Esbo in fursad iyo mustaqbal u noqoto ina irdaha u gargaraacdo si ay u xalisa caqabadahooda haysta waxaan rabaa dhanka fogaan arag inaan ku laabto Maryam may maqashaa si fiican ku maqlaa waaya Maryam caqabadaha aan ka hadalnay sidee bay kula tahay in loo geyn karo golaha deegaanka Esbo soo dhow mahadsanid waa dhawahay heday waan ku raacsanahay gabigeena fikradaha maanta dhiibateen aniga horta waxaan u baaqayaa dadka aqliga la saaxiibka leh inay maxay ahayd ku baraarugaan inaan u baahanahay matalaadaba arrimahan dhan aan ka dhawaajinay kuwa kala badan inaan maanta soo hadal qaadin waxa weeyaan waxyaabaha go'aamanka meesha laga gaaro in qof inuu noo fadhiisto oo maxay ahayd aqoon leh oo karti leh oo awoodi kara in arrimahan wax ku soo kordhiyo ama ka bedelo marka waxa weeyaan gabigoodaba waxay soo hoos imaanayaan waa kawbunkiga magaalada waxbarashada baba ayaan tooymintaga sida hobbiga loo yaqaano loo mustacaan qoysaska arrimaha ururada gabigoodaba waa wax soo hoos yimaada golaha deegaanka marka golaha deegaanka waa meesha ugu saxsaneed oo laga fulin lahaa lagana dhisi lahaa lagana sixi lahaa waxyaabaha anaga bulshadeena Soomaaliyeed ka khaldan tahay marka dadka idin waxa ugu baaqayaa in ay codkooda dhiibtaan oo ay waliba codkooda siistaan qofkii ugu
saxsanaa oo maanta Soomaali matali lahayd aqoon iyo kartina u leh marka aad bay kaaga mahad celinayna Marian Askar kulli waxaan rajeynayaa dadka ku daawan doona barnaamijkana daawan doono gaar ahaan reer Esbo inay iyagana talooyinka qaadan doonaan ay codkoodana siin doonaan engineer Maxamed Cali Jaamac oo barnaamijka naga qayb galay isla fogaan aragga aan iska gabagabeynayna Jaamac mana maqashaa okay jaamac qadka ayaa ka go'ay waxaan u soo laabanayna barnaamijkeeni qaybihii dambena waa marayna kaliya waxaan raadinayna waa sida loo geen karo golaha deegaanka baashi bal sidee adiga kula tahay caqabadaha arrimaha qoyska ee hadda inta yar soo koobtay ata sida loo geen karo golaha deegaanka Esbo السلام عليكم ورحمة الله وبركاته runtii waxaan aaminsanahay haddii la helo qof meesha ku haboon kartideeda leh aqoonteeda leh waxa uu yaqaanina dadkiisuna ku soo noqdo waxaan aaminsanahay hawshaasi waa hawl mataqan la geen karo marka walaalkan hadda uu noo sheegay wuxuu yiri anigu waa dadkan ku soo noqonaya marka anagu wax kala ma sameynayno u sheegaynaa walaalaha kale u sheegaynaa marka waxaan aaminsan hawsha in barta la geen karo waxaan u rajeynayaa walaalkay Maxamed Guul iyo waxaan rajeynayaa inuu hawshaasi hadda u geliyo inuu Ilaahay u fududeeyo waayahay guuleedna hore isku raacsaday wixiisa jawaabtii oo dhan saa rajeynayo waxaan waayahay guuleed baa farta u taagan guuleed soo dhow waxaa jirta maalin waxaan arkay dalka Sweden baan waxaan ka arkay in laga sameeyay telefishinka waqti loo sameeyay ku baxa af Soomaalida baan arkay marka gabadh baa soo dhigtay marka Snapchat-ka marka runtii aad baan ugu farxay gabadhii waan la xiriiray waxay igu tiri waxaan loo sameeyay saacad oo ku baxay af Soomaaliga marka waxaan aaminsanahay dadka waddanka Soomaalida waddanka degan inay baahi weyn u qabaan baan aaminsanahay marka talada ay kugu jirto waxyaalaha qaar dadka maanta u baahan yahay waddanka especially dhalinyarta ubadka in loo sameeyo barnaamijyo ku baxa af Soomaaliga lagu baro loo waayay macallimiinta waddanka degan dad Soomaaliga yaqaanaan degan anagoo fanaaniyaha degan xataa sameyn karna isha barnaamijyada u sameyn karna marka talada Maxamed uu ku jirta maanta uu gala hadlay marka waxaan kugu adkeenayn arintaas xoog la saaro insaan ka baxaya runtii waa runay ana ku yar boodaya aniga iyo guuleed arinka waan ka yar wada hadlay runtii waliba guuleed wuxuu ii sheegay runtii waxaan ogahay waxyaabo badan uu rabay inuu sameeyo oo ah dhalinyarta inuu u sameeyo maxay dhalinyarta Soomaaliga maxay ka aradan bari baan waxa jirtay dadka ku tacaydeyn jiray war ilmahaaga maxaa Soomaali bari weeyday imanka anay taaganta imanka anay taaganta ayo shan caruur aan leeyahay alxamdulillah ka weyn mooyaane inta kala dhamay waxaad moodaa inaan sal dhibanahay marka waxa weeyaan guuleed wuxuu ii sheegay marka waxyaabo badan uu rabay inuu sameeyay uu ka fakiray imankana ku jirta arrinkaas marka meel fog bayna la gaadho on ka wada hadalnay sidii af Soomaali loo heli lahaa meel af Soomaaliga ay maxay ka quutaan caruurta oo ka soo qaataan af Soomaaligooda oo maxay wax walba xagga ka ogaadaan arrinkaana marka muxuu ahayd inay sheeg walaalaha xagga ila jooga maxay oo dhan waa la kaashan doonaa siiba maxay inay sheeg guuleed marka bal wixii laga qaban lahaa xitaa haddii cid kale naga caawineen in inagu jeebkeena intaanu qaraacno inagu arrinka aan ku sel gaadhno insha Allah waayahay engineer Maxamed Cali Jaamac aad u mahadsan tahay waa sida waa wada daawateen programka ujeedka ugu weyn waxa uu yahay si loo ogaado caqabadaha jira gaar ahaan reer Esbahesta ama guud ahaan waddanka Finland xalintoodana musharaxa golaha deegaanka engineer Maxamed waxa uu isla markaana gaarsiiyay haddii xitaa aan u weyno gacan kale jaabkeena garaacina meel ka dambeysa madax meel ka sareyso la taabtana ma jirto waxaan u mahad celinayaa saaxiibada barnaamijka igala qayb galay oo aan arrimaha bulshada uga hadlaynay oo ugu horeeyo engineer Maxamed Cali Jaamac oo Gulesimba Baashe iyo Marian Askar iyo waliba Jaamac Faisal oo qadka fogaan aragga barnaamijka uga qayb galayay waa walaalkiin Sharmaaka Abu Karamin oo idin la waanida mahad celinayna waqtigiina sida ay noogu horteen tan iyo kulanti dambe nabadgelyo